Hamister Combat waxa ay joojiyeen in la baxo lacagaha ama coinska in la baxo marka ay soo fasaxaan lacagta sababtana waa ay sheegeen in lacagii u xiran oo aan waxba la bixi karin waxaan naga daawanaysan ama naga la socotaan warbixinta ka dhigaysanaysan waa gacan qabad innovation haddii aad channelka cusub tahay follow soo dhe ama subscribe meeshaan naga socotidba telegramkeena ku soo biir gacan qabad innovation si aad wararka airdropka ula socoto Hamister Combat dad badan ayaa ku guuleystay oo Soomaaliya ka mid yihiin waxay sheegeen 300 milyan oo qof in ay Hamister Combat ku soo biireen 300 milyan qof ilaa ay Mars ilaa haddana waxa only ku guuleystay 101 qofood ayaa qualified 101 milyan ayaa soo baxday oo kaliya sidoo kale waxay sheegeen 30.6 milyan oo qualified users inay doorteen withdraw method oo ama exchange-ga iyo inay doorteen ama ay claim ay codsadeen in ka badan 100 bilyan oo Hamister token ah ama 75% ana reserve ayaa lagu sameeyay oo community ayaa loo keediyay 60% waa la qaybin doonaa marka session 1 la gaaro amountiga oo userka marka qof walba loo ogol yahay waa 88.35 oo isla markii lacagta aad haysasid 88% waa la bixi kartaa 12% ma la bixi kartid oo waxa laga xiray oo waxa la bixi kartaa 10 bilood kadib marka lacagta la soo fasaxo ayaa la bixi kartaa marka qof walba marka waxay ka dhigan tahay in lacagta aad coinka aad heshay 12.25% kamida in laga xanibay oo aan la bixi karin oo aad la bixi kartid bisha June sanadka 2025 ka soke ma la bixi kartid intaas ay sheegeen oo 88.75 isla markii waa la bixi kartaa sababta ay u yeeleen waxa kamid ah lacagta Hamister coinka ama Hamister Combat-ka coinka waxa la rajeynayaa in qiimo sare ay gaarsiiyaan tusaale waxaan ku soo qaadan karnaa pre-market-ka hadda markii ay soo fasaxeen 3 bilood ka hor price floor-ka hadda waa 0.091 oo hal senti u dhiganta price floor-ka maalintii koowaad wuxuu ka bilowday 0.06 ayuu ka bilowday waxa uu gaaray $2.25 ayuu gaaray marka all the time high-geeda waa $2.25 waxaa la rajeynayaa marka in la coinka markii la soo furo ama trade loo fasaxo in la gaarsiiyo $2.25 ilaa iyo in ka badan in la gaarsiiyo la rajeynayaa marka haddii qiimaha hadda oo price floor-ka uu yahay hal senti uu yahay inta badan coinkana waxa laga fiiriyaa price floor-kiisa haduu ka bilaabanayo hal ewer haduu ka bilaabanayo hal senti uu ku dhow yahay qiimo fiican uu gaari karaa sida daraadeeda marka haddii coinka uusan price floor-kiisa uu ka hooseeyo ewerad fara badan waxa laga yaabaa marka inuusan si fiican u kicino oo investors badan ay soo galin oo manaan la qaxiiseen lacagta ayaa laga cabsanaa marka Hamister Combat shirkadan waxay rajeynaysaa marka waxa Telegram ayaa iskale marka waxay rabaan in investors badan meeshan ku casuumaan lacag badan la soo gashto dad badan aad loo hadlayo lacagtan TikTokerska YouTuberska dadka saameynta influencerska ah oo haweenka way qaateen la coinskan waa la siiyay marka sida awgeed marka in lacagtan kor u kici karto xabadii lacag weyn ay gaari karto ama $5 ama $10 waa la rajeynayaa waa meme coinka ugu horeeyay lacag weyn noqday ay noqon doontaa sida awgeed marka hadii lacagta dadka la wada siiyo oo kulli la wada furo in kaliya la wada dhigi karo dadkii waxay noqonayaan way wada iibinayaan waa sida ku dhacday dogis lacagta ku dhacay sidoo kale iyo sidoo kale Pixel Finance iyo kale wax ku dhacay lacagii dhan dadka ay wada fasaxeen isla markiina waa la wada gaday oo sales la wada galiyay marka aday tusaalaha marka aad ku tusiyo qaybta kore waxa ku qoran total Hamister ku qoran qaybta ku xigta waxa qoran claimed ay ku qoran qaybta ku xigta marka waxa waaye next unlock meesha ku qoran tahay oo inta aad la bixi kartid waaye oo markii Hamister la fasaxo inta aad isla markii ay gadi kartid waa intaas waaye inta aadan la bixi karin waxa ku qoran unclaimed ayaa ku qoran waa qaybta hoose waaye marka waxa xisaabsan kartaa hadda inta aad la bixi kartid iyo inta aadan la bixi karin price floor-kana waa hal senti ka badan waxa waaye $1 ayuu ku dhow yahay marka aniga hubo in hadda ay gaartay Hamister qiimaha oo pre-market-ka ana margatay oo si iibiyay waa ka sii ganacsaday waxaan ku iibiyay markaas waxay ahayd waxaan ku iibiyay 0.6 ku gatay waxaan ku sii gaday ama sell ku dhahay $2.20 ku gaday all time high-geeda marka wuu ka sii badan karaa $2.02 iyo bar ilaa iyo $10 ilaa $5 wuu gaari karaa waa market sababtoo ah lacagta aad loo hadlaaya waxaan rajeynayaa inaan muuqaal ka shay si aan meel fiican u gaarno channelkan subscribe saar asxaabtaada gobolka ku hay in Hamister Combat-ka qiimaha uu gaari doono share u dheh dadka la wadaag si aan kor ugu soo kacno insha Allah